بسم الله. magacaygu waa cismaan khayre. caawa waxaan halkan u nimi anigoo ku hadlaya afka jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobollada Buuhoodle, gobolka Sool iyo Sanaag iyo gobollada kale ee hareeraha ee Soomaaliyeed dhinaca galbeedka iyo barigaba ka xiga. waxaanu caawa halkan u nimi waan doonayay inaan isdul taago 3 qodob oo kala ah shirka ka socda magaalada Ballecad ee uu wado Cali Khaliif Galeyd iyo inta la socota ay wadaan oo aanu cambaareynayno. qodobka labaad aan doonayay inaan nidhaahno waxa weeye shirkii garaadada iyo ismada beelaha gobolka Sool iyo Buuhoodle iyo Sanaag ay ku qabteen higlada iyo qodobadii ka soo baxay oo aanu taageeri doono. qodobka saddexaad aan isleeyahay tiraahdi waxa weeye caawa Soomaalida dhammaan maamulada Soomaaliyeed dhammaantood sida ismaamulka kililka Somaliland, Puntland, federaalka in aanu u soo jeedino kelmad ku saabsan arrimaha aan kor kaga soo hadlay. kow ina Galeyd iyo shirka uu ka wado Ballecad. shirkaasi waxaan Soomaali oo dhan u sheegaynaa iyo maamulada deriska aba shirkaasi waa shir xaaraana oo innaba aan ka imanin bulshada degan gobolka Buuhoodle ee deegaanka Cayn iyo gobolka Sool iyo Sanaag ee uu sheegto kama imanin shirkaasi. kumana matalo wakiilna kagama aha. waxaad wada ogtihiin ninkan professorka Cali Galeyd inuu hadda ka hor la yimi magac la yidhaahdo Khaatumo oo uu doonayay inuu kaga qayb galo siyaasadda Soomaaliyeed isagoo Soomaaliya oo dhan ay og tahay inuu horay ugu fashilmay wasiir Soomaaliyeed uu soo noqday 82 uu la baxsaday wasaaraddii iyo wixii yaalayba dibadda la galay 2000 uu soo noqday dowladdii Djibouti carta uu ka noqday prime minister taa laftigeedana uu ku fashilmay dambiilo qaran uu gaadhay inuu noqdo baan halkan ka cadeynayna. kadib inuu samaystay magac uu doonayay inuu qaab qabiil kaga qayb galo nidaamyada iyo maamulada Soomaaliyeed Khaatumo la baxay. Khaatumo wax la yiraahdo oo meel ka shaqeysa oo maamula oo jirta ma jirto. waxaad wada ogtiin Soomaaliya dalka Soomaaliya 18 gobol buu ahaa iyo 9 degmo. maamul goboleedka la doonayo federaalka laga qayb galo waa 2 gobol iyo wixii ka badan. gobollo aanu deganayn oo aanu ka talin ayuu ninkaasi ku sheegtay Khaatumo in la yiraahdo oo maamul sheegtay sida gobolka Sanaag, gobolka Sool, degmada Buuhoodle oo dowladdii hore ee gobolka Togdheer ah. deegaanadaas oo aanu joogin ayuu ninkaas wuxuu sheegtay inuu madaxweyne u yahay uma aha. waxaan cambaareynaa shirka Ballecad ka socda cid ku waafaqsan oo dadka deegaanadaasi gaar ahaan beesha dhulbahante kulama socoto. beesha dhulbahante iyo beel walba Soomaaliyeed ismadeeda iyo salaadiinteeda u taliya. dhulbahante waxaa xukuma isimada ku shiray higlada 12 isim. waxaa ka maqnaa Garaad Saleeman Garaad Maxamed oo xanuun ugu maqan dibadda isna telefoon buu ku waafaqay oo kula jiray. ninkaas waxaanu leenahay Soomaaliya ma matalo dadka uu magacooda sheeganayo wakiilna kama aha shirna uma qaban karo. madaxweyne maamul goboleed oo uu yahay oo Soomaali iyo cid kale toona ictiraafintayna ma jirto. dowladda marka ismaamulka kililka waxaanu ka codsanaynaa iyo Puntland iyo Somaliland intaba iyo dowladda federaalka ah in sidii ninka ummadda khalkhalka iyo nabadgelyo darrada ku wada looga qaban lahaa la isaga kaashado. beesha Somaliland iyo Isaaq waxaan leeyahay yaan ma matalo. waxaad ogtiin inuu fidmo wala yahay Cali Khaliif Galeyd. beesha uu hadda afkeeda ku hadlayana ma matalo wakiilo kama aha. wixii aad gaar isaga ugala xaajoonaysaan idinka idin taala. laakiin waxaanu idin sheegaynaa ninkaasi inaanu gobolka Togdheer iyo gobolka Sool iyo Sanaag
iyo buuhoodle aanu midna wakiil ka ahayn baan idin sheegayna wixii marka nabadgelyo darro ah ee uu ina galaydh ka wado mandaqada la wada degan yahay waxaan codsanaynaa in la iska kaashado aynu isaga wada nimaadno oo laga qabto dadka iyo deegaankaba ina galaydh markaan isaga intaa ku daayo waxaa bulshada aan wakiilka ka ahay caawa afkooda ku hadlayo la cambaaraynaya oo aada loo cambaaraynaya shirka uu ka wado ina galaydh ballicad iyo dadka uu mar walba ku khaldayo in uu maamul u hayo iyo talo u hayo ayaa la cambaaraynaya oo lagaga soo horjeedaa taas markaan taa kaga gudbo isimada sharfan ee ku qabtay higlada shirka iyo baaqi ay ka soo saareen waa taageersanna aada iyo aadna waa usoo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaya afka jaaliyadda gobolka buuhoodle iyo sool iyo sanaag iyo dhammaan dadka degan halkaaba ee dibadaha jooga iyo kuwa gudahaba waa taageersannahay waana la shaqaynaynaa beesha waxay ka go'daa taladeedu nimankaa higlada isugu tegay ee shirkana ku baaqay buuhoodle ayay ka go'daa beesha deegaanada degan taladoodu waxaan marka ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba aanu soomaali iyo maamulada soomaaliyeed ee hareerahaba ka codsanayna sidii wax looga qaban lahaa oo la isugu tegi lahaa nabadgelyada darrada uu kaga dhawaaqay hadda gobolka mudug beelaha walaalaha ee galmudug iyo gaalkacyo iyo mudug iyo colaada uu ku baaqay military iyo khalkhalka uu ka wado deegaankaas cali khaliif galaydh in la isaga yimaado oo sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto oo loo soo qabto soomaalina loo horkeeno aad baan idiin salaamayaa dhammaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu